Allow muu iga qabta galabta taleefanka. Shakiitiyo adeer kuu noqdaad abid jalaydaaye 15 mar hay waco midhaa lama shuraakeeyo ku dami kan dambena geli haba layga jeebsiibe talow ma yartaa sugayaa oo mise waa isagii maxaa madaxa noo geliyey Dan baad u qaban saanaan daalayni weligaaba isgiij. adeeroo gabadhan guursan lahaa Haa, galabta waa kaa shukaansan waayey soo maaha war wax noo sheeg. xogtaa ku siiyayo xariifad baan isku haysanaa xagaagana waa ismehersan doonaa Oo anigu gashaantidan kula rabay ma gabawaraysaa. adeer dookhayga maanaa leh mise waa idirqinaysaa Dookhaaga ma yeelan kartid dirqisna fursan mayside da'yar baa tahay ee dabaysha ka soo xarood. Hooy, haddaan ku sugayaa. adeeroo adeernimadaada waa mid laga oo ay maxaa dhaxanta iyo dabeelaha dugsigooda nugu diidanta Ma ogoliye ka laan soo. kuu imaado baraf baa wuxuu u daadsan yahay sidii bariiskiiye bito ciida waa lama arkaan loona baholyowye ban maroobayay hooyaday batalka aan aalo iyo baaxasooraha haddii looga biligsiiyo barqay ariga ii gadi lahayd si aan u soo baxa badan way dambaysaa anaanse baarqabnimo dooran mar haddaan baraaraha rag maray tan uga biisaayo oo cadceedna ii soo baxayn waa kaniin bara badankiyo lafuu waxay rabaan shay bacrimin karee booskeeda goortaad gabtaad bolol u aydaaye baytamiin khasab ayuu wax tari waa bo oo dhimo tii barbaarta ii haysay buulka ii joogtay halow gabay baa iga dhex gashay ma maqlaysaa xabiibi oo walaal firkiin waa ma gabi jirine ma waxay hadda kugu soo degay baa war annaga ayaab aragnay gacmaha waxaan ku haya haddaa qaban lahayd hee dhalaalo qubatay baa noqon lahayd ma dhowrkii sanoo la yidhi qofku markuu meesha joogo wuu waashaabaa kuu dhammaaday maxaad ka sheekaynaysaa nin yahow waxaan ka sheekaynayay waxaadan fahansanin iyo wacdara aan hayo oo horta arrintii iiga waran arrintii waa isbeddeshay halkaad ii imaan lahayd anigaa dib u soo noqonaya oo hadda brosees baa ima wadid miyaa borosinka dhigo oo bir iska dhig baledkan laguma noolaan karee nin yahow ma waxaad istiri gabadhii wax sixran iskaga dhig waan soo tabliiq tegayaa nin yahow dhoof iyo adduunyo iyo adoo iga dheer inaan kaa soo agdhowaadaan rajaynayaye ma qof kalaad habaysatay macnaha cidna isdhoofin maysee walaali dhulkeennaan alla ku baryeennaa ayaa caadi iska dhig oo hadda brosees baa ima wadid miyaa wax aad soo socotid male anu unbaa soo socdee maxaad ka hadlaysaa nin yahow shaki weyn baa galay ii kaadi war annaga ayaab aragnay balaa timi soo reer tuuloodkii kaasi maaha adi kaama shakine bal u kaada iphonekayga 12 loo shuurayaaye ganaha hay suran guri kuma keen karee ii kaadi gacan biraha ku jiraaye baraf baan ka cabanayay baartoo baa qabatay rubl waxaaday yaa tooshlu wataa markaasuu leeyahay ruuxa laga furta ma watee gurigaygey baan ka wahsanayaaye soo cayrso waa inoo laba cagoode yaa ku yidhi qorbu asxaan yaal wallaahi walaal waxba iskamankii bedelin waan calaalaxay caawa na waxaa firkiyagu ma taabtaan inaga xishood waa maxaa sheegaysid jaceylkii iyo adduunyadana soo xasuustaan xero dhaafay oo hadda xaafadaydu waxay geeya waa inaan meelahan ka raadiya kan xaggaasaan ugu gambiyey ilaa uu gees ii dhaafana waa kaga gabanaya wallaahi howl baa taagan oday shakiitina meel buu igu sugayaa arkan yaa iga reeba ikastqolii kuwiisa bilay daaqla pitan fishe intaasoo arrimo iyadoo jidha macalaa ilmaha la iska tiiranayaa lacagta kaasoo gashana haafka baastada kama badan iyadaaba cirka ku dhegan waxaan bidigtaa lagaaga dhiibay bidixana waa lagaaga qaatay hamoodin ina caana ku dhammayside iska daa anigaa soo socdee ruun barwaaqo walle waa kaad joogtay ruun rafaad anna waa kaan joogo roobka noo da-ana waa kaa ninka weynoo hadda intaa la-eg barafku la yaaban yahay maxaa geeloodii ka soo kaxeeyey iyo miyigoodii foodada ahaa doolaalo dheeraa waysha iyo iskuulka afka soomaaliga isfahan brosom Farxadda iyo cawiska caafimaadka qabee ku soo dhawaada saaxiibayaal. Inaad rabtaanna waa inaad rukumataan ogaada. Adaan heegan ku nahay hamigeennu waa sharaf Soomaalida ma kala horno halkan way u siman tahay subscribe ku dhufo saaxiib dhawaana la soco iyadoo dhammaystiran. la shaqee isfahana kula shaqayse Dhiirigeli isfahan waa haraadiga dhaqankii hore ee laga heermay. Salaamu